Asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Salmaan Omar maanta muuqaalkeena waxaynu uga hadlaynaa shaqsiga caanka ah Elon Musk shaqsiga ugu qanisan caalamka intaan muuqaalka guud galin fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka Salmaan Omar subscribe saar gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo gelin inagoo dhowr xaqiiqo aynu isleenahay inay wax ka baran karaan maalqabeennada mustaqbalka. Tani waa xog kooban aynu kaga warinayno mid ka mid ah maalqabeennada adduunka, Elon Musk, oo ka mid noqday shakhsiyaadka ugu taajirsan adduunka. Elon waa 49 jir bartay injineerinka, maalgashada caalami ah, waa aasaasaha shirkadda SpaceX. Shirkadda waxa ay soo saartaa sida agabka hawada sare sida dayax-gacmeedka. Tesla waa shirkad tiknoolaji ah. Elon isagu waxa uu dhashay dalka Koonfur Afrika. Isagu waa mid ka mid ah dadka hal abuurkoodii si xooggan u guuleystay casrigan. Hal abuurkiisii ugu horeeyay waxa uu sameeyay video game, ugu dambeyntiina waa uu iibiyay. Xilliguu dhiganayay jaamacadda waxa uu isticmaali jiray maalinkii $1 wax ka yar. Runtii taajir kasta meel adag ayuu ka soo bilaabay halgankiisii nololeed. Sheekada Elon Musk midaasi kama duwana. Elon waxa uu doonayaa noloshiisa inta ka dhiman inuu ku dhameysto meeraha Mars. Waxa uu sameeyay xarunta keydinta tamarta cadceedda iyo dabaysha iyo bateriga ugu weyn adduunka. Sharcigiisa ugu yaraan waxa uu haystaa 3 sharci oo kala duwan. 1. Dalku uu dhashay Koonfur Afrika. Dalka labaad uu sharcigiisu haysto waxaa noqonaya dalka Canada asagoo 19 jir uu ku tagay. Dalka saddexaad waxa uu noqonayaa dalka Mareykanka ee USA. daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalkaas aan uga hadlaynay mid ka mid ah shaqsiga ugu qanisan caalamka.